soo dhaweyntaas anigoo ku hadlaya magaca Berbera Electricity Company waxay noo tahay maanta sharaf inaanu keeno investment ay ka yimid dibadda dawladda Imaaraadku ay keentay aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin waxaanu ka rajaynaynaa inay soo badiyaan investment kalena keenaan electricity-ga iyo noocyo kaleba waxaynu inana ballan qaadaynaa inaynu investment-ka ilaalinayno xoolahooda iyo xuquuqdooda ilaalinayno taasi waa ballan inagu aynu qaadayno wadan ma horumari karo haddii aan sektarada qaarkood la hagaajin sektarka energy-gu waa xuduntii wax walba ay ku dhisnaayeen financial sector-ku waa kan ku xiga marka inaynu dhisno waxyaabaha dadkeen iqtisaadkeenu uu ku hagaagayo dadkeenu ay ku shaqaalo ku helayaan inaynu intaynu gacanta isqabsano waxaasoo dhan aynu aad iyo aad uga shaqayno marka taana waxaynu weydiisanaynaa inay sharikadu aad iyo aad uga shaqayso madaxweynuhu aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay supportkii aanu ka baranay oo uu nasiinaya inta Berbera Electricity waxa kale oo sharaf u ah inay saadaaliso inay soo socdaan generation badan transmission badan baytariyaal badan insha Allah dawladuna inay nagu support karayso ayaan weydiisanaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin